kulan wacan oo wanaagsan dawladda ku soo dhawaada muuqaalkeena waxaynu kaga hadli doonaa saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo oo lagu amray in ciidamada daraawishta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo in weerar degdeg ah lagu qaado kadib markii ciidamadaasi ay diideen in isdhiibaan isla markaana amarka madambeys waxa la siiyay ciidamada ku sugan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen iyo taliyay hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxay si toos ah ugu dhawaaqeen in ay taageero kala duwan ay u raadinayaan ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyana sidoo kale to macluumaad iyo xog dheeraad oo arintaas la xiriira ayaa sidoo kale muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa magaalada Baydhabo kulamo kala duwan ayaa ka soconaya waxaana sidoo kale durbaba markaas loo diyaar garoobaya doorasho halkaas ka dhacday in kasoo khilaafaad markaas ay jiraan iyana sidoo kale xogo iyo warar dheeraad oo arintaas la xiriira ayaa sidoo kale muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 6 bisha Afraad ee Abriil ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno waxaa markaasi amar degdeg ah lagu bixiyay ciidamada ka tirsan kuwa daraawishta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed in weerar degdeg ah lagu qaado amarkan waxa uu ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxaana sidoo kale lagu amray ciidamadan maadaama ay isdhiibi waayeen in si degdeg ah loogu weeraro goobtan ay ku sugan yihiin isla markaana gacanta lagu soo dhigo oo la soo qabto waxaana amarkan uu ka yimid madaxtooyada Soomaaliya waxa amarkan la siiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Maxamed Maxamuud iyadoona sidoo kale lagu amray in uu si degdeg ah tallaabo u qaado isla markaana ciidamadan ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed in la soo qabto oo gacanta lagu soo dhigo amarkan waxa uu yahay kii ugu cuslaa uguna dambeeyay ee markaas ka soo baxan dhinaca madaxtooyada Soomaaliya kaas oo la xiriira in degdeg markaas loo soo gacan geliyo ciidamadan inkastoo ciidamadan ay aad u hubeysan yihiin isla markaana ay wataan 30 tikniko oo nooca dagaalka ah aynan sahlaneyn in markaas gacanta lagu soo dhigo waxa ay muujinaysaa arintan culays siyaasadeed iyo sidoo kale in uu dagaal uu ka qarxi karo duleedka magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed wararka iyo macluumaadka aynu helayno sidoo kale waxay intaas ay ku darayaan in ciidamadan ay ka war heleen in uu weerar uu ku soo wajahan yahay isla markaana iyagana waxa ay galeen diyaar garowgii ugu dambeeyay iyagoona sidoo kale u diyaarsan inay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya abaabulkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale qaban qaaba ayaa soconayso taasoo iyana ka dhigan in ay tahay mid markaas muujinayso in xaalka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu mar kale uu lugaha uu la gali karo dagaal taasoo muujinayso in uu halkaas uu ka qarxo dagaal u dhaxeeyo ciidamadii hore u taabacsanaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen iyo sidoo kale ciidamada kale ee ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay markaas u muuqataa in daqiiqad kasto xiisadu ay sii kordhi karto isla markaana ay noqon karto mid faraha ka sii baxda maadaama dhinacyadu ay isku hub urursanayaan sidoo kalena diyaar garowgii ugu dambeeyay oo midba midka kale uu ku jiro ciidanka ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ayaana waxa lagu qiyaasay ilaa 2,000 oo askari kuwaas oo ka baxsaday magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed qaarkood takano ayay qabaan oo waxay ka cabsi qabaan markay ku laabtaan magaalada Baydhabo in argoos lagu la kaco si ay taasi ay ugu hortagaan ayayna sidoo kale waxay markaas ay bilaabeen in difaaciyo waaweyn ay ka sameystaan duleedka magaalada Baydhabo deegaano ku yaala waxa la tilmaamay in hubka culus iyo sidoo kale gaadiid dagaal ay haystaan ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaana ay tani ay ka dhigan tahay in xaalku uusan ahayn marnaba mid sahlan wararkii ugu dambeeyay oo aynu sidoo kale helayno waxa ay tilmaamayaan in madaxweynihii xilka iska casilay ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen uu isaga markaasi amar degdeg ah uu ku bixiyay in ciidamadan ay isdifaacaan isla markaana dhaqaale fara badan uu siin doono taageero xoogan uu siin doono taasoo iyana ah markaasi muujinayso mid si weyn haatan markaasi u muuqanayso in xaalku yahay mid aanan marnaba sahlanayn
waxaa sidoo kaleeto arrintan caddeeyay inay ciidamadan isdifaaci doonaan taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo isagana ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Mahad ayaana dhowaan xilka qaadis waxa ku sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii xiisad culus ay ka dhex qaraxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihiisa casile ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen. taasi wixii ka dambeeyay waxay sidoo kale ay noqotay ama ay qasabtay in xaalku uu noqdo mid aanan marnaba sahlanayn isla markaana xaaladda deegaanka ka jirta oo u muuqdo mid markaasi dhinacyadu ay ugu diyaar garoobayaan in haatan mar kale dagaal uu ka dhaco. si dagaal ay u soo qaadaan ciidamadan looga hortago ayaa dhinaca magaalada Baydhabo amarka madambeysa la bixiyay kaasoo la xiriira in ciidamadu ay heegan buuxay galaan isla markaana daqiiqad kasta waxay weerari karaan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. si arintaasi looga hortago ayaa dhinaca magaalada Baydhabo waxaa ka soconay diyaargarowgii ugu dambeeyay oo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba maxay noqon doontaa xaaladda magaalada Baydhabo? muxuu yahay colaadda mar kale ee dhinacyadu ay markaasi ay isugu hub urursanayaan ee laga cabsi qabo in Baydhabo ay ka dhacdo? waxyaabaha ka soo kordhana waynu idin la wadaagi doonaa ee markana gudaha Baydhabo haddii aynu ku laabanno. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan degdeg ah u la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku sugan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. madaxweyne Xasan Sheekh ayaana sidoo kale waxaa la tilmaamay in odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka reer Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu kala hadlay sidii lagala shaqeyn lahaa in doorasho qof iyo cod ah in ay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. xogaha iyo macluumaadka aynu helayno sidoo kale waxay tilmaamayaan intaasna ay ku darayaan in xaalku uusan ahayn marnaba mid sahlan isla markaana diyaar garowgii ugu dambeeyay oo waqti xaadirkan uu ka soconayo gudaha magaalada Baydhabo taasoo loogu diyaar garoobayo in doorasho qof iyo cod ah in ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. macluumaadka iyo wararka kale aynu helayno waxay sidoo kale intaasi ay ku darayaan in diyaar garowgan ee madaxtooyada Soomaaliya ay wado iyadoona sidoo kale abaabul xoogan oo xilligan markaasi uu ka soconayo gudaha magaalada Baydhabo taasoo la xiriirta dhinaca doorashada. wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isagu waxa uu markaasi ololay ugu dambeeyay dhinaca doorashada uu ka wada magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. sidoo kale dadka ololaha wada waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Eelay iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo iyagana ku sugan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. dhammaan mas'uuliyiintan ayaana waxay u diyaar garoobeen in doorashooyinkan ay markaasi ka wada qayb galaan taasoo ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. marxalad kale guur ah ayuuna maamulkan uu galay waxayna markaasi u muuqataa in diyaar garowga haatan soconayo oo midba midka kale uu ku doonayo inuu kaga awood roonaado dhinaca doorashada iyadoona sidoo kale kulamo isdaba jooga ay waqti xaadirkan ay ka soconayaan gudaha magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. haddaba doorashadan iyo sidoo kale diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ka soconaya magaalada Baydhabo wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.